kulanti wacan khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee waliba khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Buulaxaaji ee gobolka Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya halkaasi oo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ku soo qaadeen weerar culus oo ay doonayeen in ay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ciidanka Jubbaland iyo waliba dadka shacabka ku dhibaateeyaan sida ay ku waramayaan wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dagaalka subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay duleedka degmada Buulaxaaji waxa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba ciidanka dawladda Jubbaland gaar ahaan guutada Biirjeex ay cashir taariikhda galay oo ugu dhigeen maleeshiyaad isa soo aruursaday oo ka tirsan kooxda khawaarijta ee al-shabaab sida warka ay